السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. akhyaarta ku xiran janalka waxaan idin leeyahay soo dhawaada. waxaan muuqaalkeenan kaga hadlaynaa mid ka mid ah halyeeyadii saameynta xoogga weyn ku yeeshay ee ummadda islaamka soo maray ee noolaa waqtigii dahabiga ahaa ee ummadda islaamka. haddaba waa kuma, halkeesa ka soo jeedaa, muxuuse ku soo kordhiyey adduunkan aynu ku nool nahay? weydiimahaas oo dhan waxaynu ku falanqayn doonaa muuqaalkeena soo socda insha allah. haddii ay tahay markii kugu horeysay ee aad soo booqato janalka, leeg saar, sabskraibna saar si aan u soo kordhiyo muuqaaladan iyo kuwo kale oo ka xiiso badan. haddii aad hore noola joogtayna waad mahadsan tahay. guul walba waxay ka bilaabataa isku day fashilmay. maahan inaad rajo dhigtid hamiga aad ka leedahay noloshaada, keliya hore uga soco. waxa uu ku dhashay magaalada Baqdaad. taariikhyahanadu waxay sheegeen inuu asal ahaan ka soo jeedo dalka Beershiya. magaciisoo dhammaystiran waa Abu Faraj Muhammad ibnu Isxaaq al-Nadiim, kuna caan ah ibnu Nadiim. waa qoraa iyo aqoon-yahan reer Baqdaad ah. waxa uu aad u jeclaa yaraantiisii, waqtigiisiina ku soo qaatay inuu wax akhriyo. ugu dambayntiina waxa uu qoray kitaab lagu magacaabo Al-Fihristi. ibnu Nadiim kitaabkii uu qoray waxa uu kaga hadlay sharciga, taariikhda, falsafadda, xisaabta, tafsiirka qur-aanka kariimka, luuqadaha iyo cilmiga kimistriga, suugaanta, garaamarka. sidoo kale waxa uu wax ka qoray dhammaan quruumihii soo maray adduunka oo dhan. kitaabka Al-Fihristi waxa uu u sameeyey ibnu Nadiim jabtaro iyo nambaro si ay ugu fududaato qof walba oo akhrinaya. ibnu Nadiim taariikhdiisa wax badan lagama hayo, balse ummadda islaamka waxa uu ku soo kordhiyey kitaab anfacay. eebba ha u naxariistay, waxa uu geeriyooday sanadu markay ahayd 20kii Shacbaan sanadii 380 ee hijriga. waa inoo iyo muuqaalka xiga insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.